Qaxootiga ku soo qulqulaya Yurub ayaa ah mid baaxad leh oo tiro beelay iyaga oo wadamada badidoodu la circiraya tahriibayaasha badidoodu ka soo haajiray Bariga Dhexe ayaa wax saddexdii bilood ee ugu dambeeyay soo gaaray waddanka Finland qiyaas ku dhow 20,000 oo badidoodu u badan Ciraaqiyiin. Home Cable TV oo booqday kaam ahaan jiray xero ciidan oo dhowaan laga sameeyay lana kulmay Soomaali halka ku jirta waxay ii sheegeen in xaaladda kaamka hadda aanay fiicnayn oo wax waliba dadka ku tiro yar yahay hoyga iyo huguna aad u yar yahay cunto fiicanna aan la siinin. Sida oo kale waxaa jirta in masaajidada iyo ururada Soomaalidu maalmihii u dambeeyay magaalada weyn ee Helsinki ka ururinayeen dhar iyo gogol ay dadkaasi ku seexdaan. Goobtaasi intaan ku sugnaa waxaa kaamka dhar iyo kaba keenay muslimiin iyo urur khayr iyo barako waxaana ii sheegeen mas'uuliyiinta ururkaasi in muslimiinta ka codsanayaan in qof walba wuxuu hayo meeshaasi ay kaga soo qaadi doonaan si ay ugu geeyaan qaxootiga waddanka ku cusub. Hada Yusuf Ismaan, Home Cable TV, Finland.